uu dilaacay dagaaladii sokeeyey iyo dagaaladii ku xigay 1990kii. waxaa soo ifbaxay marqura jenaraal maxamed saciid xirsi moorgan wasiirka gaashaandhigga hore ee Soomaaliya. waxa uuna ahaa hogaamiye sare oo wax ku ool ah, maqalkiisuna ay ka nixi jireen mucaaradkiisa. jenaraal Morgan waxa uu ku dhashay Qardho, gobolka Bari, sanadkii 1949kii. waxbarashadiisii dugsiga sare waxa uu ku qaatay magaalada Muqdisho sanadkii 1967. kadibna waxa uu ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. waxaa waxbarasho sarkaalnimo loogu diray dalka Ruushka muddo 3 sano ah si uu u soo dhammaysto tababarkiisa ciidannimo. waxa uu shahaado master ka qaatay jaamacad Mareykanka ku taalo the United States Army Command and the General Staff College, waxaana loo tababaray habka toogashada dheer. soo laabashadiisii waxaa dhashay kacaankii 21 Oktoobar. kacaankaasi waxa uu ka mid noqday saraakiishii ugu horeysay ee loo xilsaaray la shaqaynta madaxweynaha. jenaraal Morgan waxaa sodog u ah madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya, Jaale Maxamed Siyaad Barre. markii dowladda ay burburtay, waxa uu ka mid noqday madaxdii kacaanka iyo hogaamiye ku-xigeenka ururkii SPM Aadam Gabiyow. kadibna waxa uu galay dagaallo fara badan. Morgan waxaa wakhtigaas lagu eedeyn jiray in uu yahay dagaal ooge, laakiin marka la eego xaaladda dalka ka taagnayd oo ahayd jabhad qabiil u abaabulan oo weerar ku ah dad shacab ah, waxaa in badan oo kale aaminsan yihiin in uu ahaa halyey difaacay sharafta iyo karaamadoodii. sanadkii 2016kii waxa uu u tartamay in uu ka mid noqdo aqalka sare ee Soomaaliya. baarlamaanka Puntland oo kala saaray labada musharax Bootaan Barre iyo Maxamed Saciid Xirsi Morgan. Bootaan Barre waxa uu helay 38 cod, halka dhinaca kale Maxamed Saciid Xirsi Morgan uu helay 27 cod. kadib guuldaradii doorashadii golaha aqalka sare ee 2016kii, sanadii 2018kii jenaraal Maxamed Saciid Xirsi Morgan waxa uu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu u tartamayo xilka madaxweynenimada dowlad goboleedka Puntland. waxaan hortiina kaga dhawaaqayaa inaan ahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland 2019. dadka qaarkood ee arrimaha ka faalooda ayaa sheegaya in Morgan musharaxnimadiisu uu ku doonayo inuu u soo wareegsado Puntland kana qayb qaato siyaasadda Puntland, xitaa haddii uu ku guuldaraysto tartanka madaxweynenimada Puntland.